على آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان waxaan rabaa galabta inaan shirkan jaraa'id aan u qabtay marka koowaad inaan u hambaliyeeyo xildhibaanada galmudug ee galabta lagu dhaariyay magaalada madaxda dowlad goboleedka galmudug ee Dhuusamareeb. xildhibaanadaas la dhaariyay oo u hambaliyeynayo waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu waafajiyo sida danta iyo dadka reer galmudug dadka reer galmudug ay ku jirto. waxaan iswada xasuusinaynaa oo la soconaa in muddo dheer oo runtii 8 bilood ka badan uu soo jiitamayay processka lagu soo dhisayay baarlamaankii labaad. intaas waxaan u taagnayn oo aan ahayn annagoo ah reer galmudug daneeyayaasha galmudug in ay dhisanto galmudug runtii dadkeedu intii suuragal ah ay raalli isaga yihiin. waxaa aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa in maamulkii ahlu sunna iyo dowladda ay heshiiyeen, xildhibaanadii soo baxeen, intoodii badnaana hadda maanta la dhaariyay. marka koowaad waxaan codsanaynaa in xildhibaanada inta dhiman ee danaha gaarka ah loo hayo ee odayaashoodii ay ogol yihiin iyo saxiixoodii in la xalliyo lana soo dhammaystiro. qodobka labaad in allaale inta dacwo qabta in la dhagaysto dacwadooda. waxaa muuqata in guddiga dacwo qaadista oo meesha ka baxay oo aad moodo in si fudud hal go'aan aan gacanta ugu galnay, ayadana in dad aad u badan oo odayaala iyo dhaqana oo dacwadooda ay yeerayso in dacwadooda la dhagaysto. haddii Ilaahay yiraahdo qodobka saddexaad ee aan rabno wuxuu yahay in guddiga farsamada iyo dowladdaba uga fadhino maadaama processku ay ayada haysatay ilaa hadda in process cad ee inta dhiman wax looga qabanaya la soo saaro. waxaad moodaa in anagoo ah murashaxiintii in badan oo ka mid ay tahay in hawsha socotaa ay tahay hawl caawa haddii la qabanayo iyo habeen dambe haddii la qabanayo aan caddayn, road mapka jidka loo marayaan uusan caddayn. waxaan codsanaynaa in jidka la caddeeyo. waxaan rabaa mar kale iyo mar labaad inaan u hambaliyeeyo dadka reer galmudug, dadka Soomaaliyeed iyo dhammaan xildhibaanada maanta la dhaariyay. waxaan halkaan rabaa inaan ka xuso in xildhibaanada la dhaariyay ammaanad ay saaran tahay. waxaan dareemayaa culayska la soo saaray sidii loo bareshar gareeyay qaar badan oo ka mid ah sidii kuraastooda loogu dhibaateeyay. laakiin waxaan rabaa inaan u sheego maanta waa la dhaariyay kuraastooda iyo masiirka reer galmudugba ayagaa mas-uul ka ah. ciddii shalay kitaab hadday soo marisay beena ama dhaar ama gacanka maaragtay handadaad ama dib u dhigid, hadda maanta ayaga ayaa masiirka galmudug ayahooda inay ka taliyaan la rabaa. waxa ay ku talinayaan waa inay noqotaa danta fog ee reer galmudug sida ay ku jirto. haddii Ilaahay yiraahdo sida muuqata wixii hadda ka dambeeyana maamulkii wuxuu geli doonaa marxaladihiisii u dambeeyay. waxaan mar kale iyo mar labaad dadka reer galmudug iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed uga mahad celinayaa garab istaagii weynaa ee la siiyey muddadii dheereed ee aan murashaxa ahaa oo murashaxnimadeeda aan ku dhawaaqay. inta ay taageersan waxaan leeyahay waqtigu waa dhow yahay, haddii Ilaahay yiraahdo guushuna waa dhowdahay. inta kale ruuxeedana waxaan leeyahay hadda inaad taageertaan baan codsanayaa. weli oon u taaganahay, waxaan u taaganahay galmudug mid ah, galmudug soo kabata ka soo kabata gaboodfalladii dhowrkii sano la soo dhaafay lagu sameeyey, maamuladeedii la cunaqabateeyey, haddana 7 bilood la soo dhaafay amaajiirkii iyo dhibaatadii aad aragteen soo marto. haddii Ilaahay yiraahdo oo aad doorataan xildhibaanada maanta la doortay oo ay suuro gasho inaad doorataanna waxaan ballan qaadayaa inaan dhiso galmudug aan wada leenahay, ka wada tashano aayaha dadkeena iyo ilmaheena mustaqbalkooda fogna ka talisa. mar kale hambalyo hambalyo hambalyo. inta dhimanna insha Allah waxaan rajaynaynaa in loo soo dhammaystiro, dadka ku dhibaataysanna loo fududeeyo. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Ilaahay garabkiina ha galo, tawfiiqdana Allah na waafajiyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.